ku-xigeenkii hore safaaradda Itoobiya ee Mareykanka barnaamijkii Maryam ayaa sheegay in meel kasta oo ka tirsan Itoobiya ay ka taagan yihiin dagaalo iyo colaado taas oo aysan soo bandhigin warbaahinta. Tanjirahan ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalo ay ka socdaan gobolka Oromada iyo deegaano hoostaga gobolka Benishaangul ee Matagal. Meel kasta oo ka tirsan Itoobiya waxa ka jira barakac dagaal iyo colaado. Ma jirto warbaahin tabinaysa waxa ka socda Itoobiya ayuu barnaamijkii Maryam. Diblomaasigan hore ayaa Mareykanka ugu baaqay inay si xooggan uga hadlo colaadda ka taagan gobolka Tigreega maadaama dadku ay dhimanayaan. barnaamijkii Maryam ayaa toddobaadkii la soo dhaafay iska casilay ku-xigeenka safaaradda Itoobiya ee Mareykanka kadib markii uu ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu dalka ku hogaaminayo waddo mugdi ah oo horseedaysa burbur iyo kala qaybsanaan. Dowladda Itoobiya waxay beenisay in ciidamadeedu tacdiye ka geysteen gobolka Tigreega.